Assalamu alaikum. casharkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa conversation between two students, wada sheekaysi u dhexeeya laba arday, waana wada sheekaysigii 18aad. How is your situation? waa sidee xaaladaadu? How is your situation? waa sidee xaaladaadu? My dear friend, saaxiibkaygii qaaliga ahaayow. My dear friend, saaxiibkaygii qaaliga ahaayow. My situation, xaaladaydu is going well. waxay u socotaa si wanaagsan. My intimate friend, saaxiibkaygiyow ama saaxiibka kugu dhow ayaa la dhahaa intimate. saaxiibkaygii aan jeclaayow. Alright, waa hagaag. Which one keebaa is better wanaagsan? Money, lacagta, and education iyo tacliinta. Alright, hagaag. Which one keebaa is better wanaagsan? Money, lacagta, and education iyo tacliinta. Are you mad? miyaad waalan tahay? Or mise going to be waad soo wadwadataa oo mawaaliba kugu soo jirtaa. Are you mad? miyaad waalan tahay? Or mise going to be waad soo wadwadataa. They are not same. isku mid maaha. According to marka loo eegayo my idea fikradayda. According to my idea fikradayda. Money, lacagtu, is the much better. way ka wanaagsan tahay. aad bay uga wanaagsan tahay. Money, lacagtu, is much better. aad bay uga fiican tahay than education, tacliinta. Have you any proof for that issue? wax cadayna ma u haysaa arrinkaasi? Have you ma u haysaa any proof wax cadayna for that issue arrinkaasi? Why not? oo maxaanan ugu haynin? waan u hayaa. If you have money, haddii aad lacag haysid, all people dadkoo dhani are respecting you, way ku xushmaynayaan, and they are iyagu flattering you, way kuu soo buuxinayaan oo way kuu soo camiirayaan, agtaadana laga waayi maayo. You can also sidoo kale buy waxaad ku iibsan kartaa what you need waxaad u baahan tahay. So saa daraadeed I can say waxaan odhan karaa the money, lacagtu, is the key of the world, waa furaha adduunka. I don't agree with you, kuguma raacsani on that issue arrinkaasi. I have different idea, waxaan qabaa fikrad kale. I have waxaan hayaa ama waxaan qabaa a different idea, fikrad kale. What's your idea? oo maxay tahay fikradaadu? What's your idea? fikradaadu maxay tahay? In my point of view, aragtidayda. In my point of view, aragtidayda, the education, tacliintu, is better than, way ka wanaagsan tahay, is better than money, lacagta way ka fiican tahay. Because maxaa yeelay, if you are rich today, haddii aad maanta qani tahay oo taajir tahay, you can become a poor tomorrow. beri waxaad noqon kartaa faqiir. But laakiin if you are educated, haddii aad tahay mutacalin, the education tacliintu will help you, way ku caawin doontaa in the future, mustaqbalka. If Allah wills, haddii Allah yidhaahdo, insha Allah. Can you elaborate? ma ii faahfaahin kartaa? Can you elaborate? ma ii faahfaahin kartaa in details si faahfaahsan the role, doorka, of the teacher, macalinka? The teacher markaa wuu u faahfaahiyey. The teacher, macalinku, is mediator, waa dhexdhexaadiye. Interpreter, waa turjume. Designer of the learning, waa nashqadeeye waxbarasho. Learning programs, waxyaalaha programmada wax lagu barto. And scholars, iyo aqoon-yahanada. Administrators, iyo maamulayaasha, agaasimayaasha. Leaders, hogaamiyaha.
hogaamiyaasha and builder waxaan u dhisaa in his country waddankiisa or population ama bulshadaba labadaba u dhisaa marka wuxuu kusoo gabagabeeyey have a nice day maalin wanaagsan you also as well sid adigana sida oo kale casharkeeni maanta intaasuu ku eegyahay intaan casharka oo kale ku kulmi doono nabadgelyo